maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta dhageysatay dacwad ka dhan ah eedeysanayaasha dilka arxan darrada u geystay marxuum lagu magacaabi jiray Bashiir Axmed oo u dhashay qowmiyadda Oromada oo ka dhacay maxkamadda gudaheeda iyadoo xeer ilaaliyaha gobolka bari Bashiir Hobele uu ku soo ogay dilka foosha xun ee geysteen saddex qof oo mid tahay haweeneydii u dhaxaysay marxuumka isla markaana qiraalkooda sawirro cadeynaya qaabka loo dilay marxuumka goobta ka soo jeediyay iyadoo dad tiro badan ay dhageysi kiiskan daneynayeen maadaama dilku ahaa mid ku cusub deegaankan ay goob joog ka ahaayeen maxkamadda gudaheeda waxay si camdiya u dileen marxuum la oran jiray محمد بشير أحمد أو اسمه أوربا بشي شناب لبكون يصدح يطبن وحي كدلين من دي وحوها مرحوم كنكي قبي السنة اللبادي افتن فرقوا كذا عبوصاصه حافظ الرفيع راحه كدب نواه شرشرين وقل أغضين متري حوايا وكوغورين هلبيه سيوغو قوان وحان محكمة كعصين inay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho oo isla markaana loo ogolaado loo dalbo fulinta waayo malaq wax la yiraahdo rafcaan malaq gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Axmed Salaad oo weydiiyay eedeysanayaasha waxa ka jira dambiga lagu soo oogay ayaa ku dhawaaqay go'aankii kama dambeyn bismillaahir rahmaanir rahiim magaca ilaahay dawladda Puntland maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari maanta oo taariikhdu tahay 23 bishii 2000 iyo 13 maxkamaddu waxa ku dhawaaqaysaa حكومة هوس كنت خليت كوا سنياش كلا تمام حسين كدير إفتن محمد عثمان دل وضع قف واحد قرتين الدليل مرحوم كيلو محمد بشير أحمد وقبي إفتن لو الدليل سبب علاقون لبضوا أي كنت جردرين قريبي ودقنا كواسين دور شكر للتن هل كانوا قبي سكينة كي دليل في الجوسية درادت محكمة واحد كوكب تلبضها قف دل توقشة ودقدقة قف مجرم وعن حر هاي والدنبقة يسوق علي قف كلا بيقول يجري ما هو القبض إنكاس دبان وقالنا كيس بريس كي حرارة هاللقون نقضوا أنا وقت قضياش ورمضي بان كمدة أنا دي والله بالله عادي أدمن وحماي مكبر marka ma baad ka karwaan horta ninka markaan maqlay xaaladda aad iyo aad loo culustay waxa qosanayna in nimankaas degdeg loo laayo Ahmed Sham telefishinka caalamiga ah Cable maxkamadda darajada koowaad oo saaso